niman ku wareer anigu Soomaaliland ma kaymi oo aan diiday 25 sano kadib aan idhi socon meesha dhulka Soomaaliyeed ka mid noqdo adiguna hadda u ordaysaa wasiir adiguna hadda u ordaysaa inuu golada fadhina inaad mid cusub abuurto samayso aniga ay warayso fikirka federalismka lagu sheegaya markuu soo baxay waxa noqotay in la isku wada qabsado geed iyo ceel sidii berigi reer baadiya oo la yiraahdo ceelkan xaggan u ahaa iyo annaga iska lahayn waxaan doonayaa inaan sidan Hargeysa iyo Burco ugu noolaan karo inaan ugu noolaan karo Kismaayo iyo Boosaaso iyo Gaalkacyo iyo meel kasta oo aan doono saasaan doonayaa maanta waxa jira matrin hatta tirada ma garanayo inta dawlad Soomaaliyeed ee calan leh ee baarlamaan leh ee ciidan leh ee xuduud leh ee adduunyada socota idinka tirin karaya taasi waa ala xisaab waxay ka go'an tahay qiimaha ummadda Soomaaliyeed iyo dawladeeda ay ka go'an tahay waxa la tumay durbaan la yiraahdo mar waxa la tumay durbaan la yiraahdo 4.5 oo beela maalinta dadkii tumayay haddii la yiraahdo war Soomaali 4.5 iyo 10.5 iyo 6.5 waxa doonto noqotay meel Soomaali una hayn Soomaali una Soomaha maxay qiimo leedahay marka in la yiraahdo 4.5 maalintii dadkii fikradaha qabay lagama fujin kareen hadalna looguma sheegi kareen waxay u arkayeen oo markaad qiyaasto ay u arkayeen haddii dadka loo ogolaado 4.5 in loo qaybiyo oo wax lagu kala qaybiyo in cadaalad dhacayso oo marka la is aaminayo oo marka ummadda cid walba ay dhibaatada ka bixi doonto laakiin ma ka baxday anigu markaan iraahdo cadaalad waxa imanaysa markaan reerkayga gaar noqdo oo aniga wax la siiyo reerkayguna muxuu noqon doonaa reerkayguna waa inuu reerasi noqdo reerkaygu waa inuu lafasi noqdo wali dhibaatadu way sii jirtaa dhibaato xali doonta ma aha hadda mid kale oo ka khatar badan baa jirto waa ta aan anigu u socdo waa ta federalismka Soomaaliya aan ka xumay dad badan oo Soomaaliyeed oo qaba wax garadi inay joogaan ama ay maqlayaan ama ay dhageysanayaan laakiin maanta waxa la joogaa maalin cad Soomaalidu dhaqankeeda waxa la yiraahdaa ninkii reerkeena wax kala hadho qoodhay xiraadaba shabta taa macnaheedu waxa weeyaan ra'yigaaga hadal sheeg berrina waa la noolan doonaa oo anigu adaan inta iyo hebel haduu intii hebel baxdo ummadda Soomaaliyeed way jiri doontaa waana la arki doonaa federalismku waxaan qabaa waa arinta aan u leeyahay taariikhda Soomaalida ma soo marin baan qabaa khatar kaga badan ummadnimada iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed waayo 1984 waa tii la yiri Yurub baa Soomaaliya qaybisay oo u qaybisay 5 gobol iyo 1884 Berlin taariikhdaas markii ummadda Soomaaliyeed ay dawladda noqotay waxa loo aqoonsaday inay noqoto baal madow oo ku yaala taariikhda ummadda Soomaaliyeed waxaana loo aqoonsaday inay noqoto dulmiyadii ugu waaweynaa ama dambiyadii ugu waaweynaa ee ummadda Soomaaliyeed uu gumaysiga qabsaday ka galay oo aan mid ka weyn la sheegin mid ka weyn lama sheegin inay Soomaaliya oo mida loo qaybiyay oo loo jarjaray 5 meelood waxay ahayd dambigii ugu weynaa ee ay ummadda Soomaaliyeed u haysatay dadkii qabsaday laakiin maanta yaa qaybinaya Soomaalida qaybinaysa laakiin fikirka federalismka lagu sheegaya markuu soo baxay waxa noqotay in la isku wada qabsado geed iyo ceel sidii berigi reer baadiya oo la yiraahdo ceelkan xaggan u ahaa iyo annaga iska lahayn waa ta imika aynu leenahay xaajigii Gaalkacyo ka hadlay Gaalkacyo weligeed waa la yaqaan in magaalo Soomaaliyeed tahay oo dad Soomaaliyeedna leeyihiin waa la yaqaan maxaa cusub markaa waxa cusub fikirkan cusub la qaatay waxa uu abuuray oo xageed magaaladan raacaysa ma state-kayga ma soo taada waa state-kayga taada maaha
taasoo qura maaha gaalka ayo qura maaha waa sida ay u badan tahay imika waa sida ay u badan tahay in la yiraahdo Soomaalidu iyadoo dagaalkii qabiilka ka xiisa dhacday oo dareentay dhibtiisa ayaa dagaal kale oo ka xun oo ah geedkayga iyo gobolkayga ayaa loo abuuray halka markaan aad uga hadlayo waxaan aad uga hadlayaa aniga laftaydu waxaan ka imid Soomaaliland waxaan u malaynayaa dambiga kala qaybinta inta ugu badan in marka Soomaalidu wada hadlayso inaan anagu tuurta uridan diro qoladii ugu laakiin waxaan uga jeedaa nuxur kuma jiro macnana kuma jiro aqoonina kuma jirto wallahi siyaasadina kuma jirto kuma jirto wax ka sahlanina ma jiraan in la yiraahdo waa dad Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliyeed oo aan leeyahay oo aan shuraaka ku nahay waa cadaalad waa qurux waa wax fudud oo la sameyn karo hargeysa ku noolow saylac tag markaan doonana boosaasan dego markaan doonana aan dego kismaayo meel ka shisaan degiyo baar dheer aan dego the best waa wax fiican laakiin haddaynu siyaasad ka dhigano ku meeraalaysano halkan ma ahaan jirin halkan ma tiin waa qiimo beel